alxamdulillahi rabbil caalamiin dhammaan waa salaamay asxaabta qadirinta iyo qiimaha mudan meel walba aad joogtaan janalkani oo magaciisa Murshabiti kusoo dhawaada maanta waxaan idin wadnaa barnaamij tusaale iyo talo caafimaad oo ka hadlaya waxtarka ay leedahay liin balbeelmada magacayga waa Jaamac Maxamed Ibrahim janalkana waan ku cusbahay maasha Allah asxaabta meel walba ay joogaan dunida waxaan rajeynayaa inay ka heli doonaan janalkan iyo waxyaabaha aan soo dhigno kulli waa waxyaalo qiimo leh murti ku fadhiyo insha Allah waxaan gudagalaynaa barnaamijkeennii ahaa talo iyo tusaale caafimaad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qodob kamid ah qodobka talo iyo tusaale caafimaad oo ka tarka ay leedahay liin balbeelmada insha Allah billahi kariim insha Allah qof walbo waxaan rajeynayaa inuu ka faa'iideysto barnaamijka iyo waxa aan soo dhigno YouTube-keena ama channel-keena Murshabiti insha Allah haddana waan gudagalayaa barnaamijkeygii qodobka koowaad oo ka hadlaya waxtarka liin balbeelmada number 1 waa wax ay xoojisaa difaaca jirka xaddiga aadka u badan ee fitamiinka ku jiro liin balbeelmada sida vitamin C waxay sare u qaadaa difaaca jirka number 2 waxay yareysaa infekshinka ka jira iyo caawiqa vitamin C waxay ka qayb qaadataa la dagaalanka jeermiska sida bakteeriyada fayraska waxyaabaha sunta ah ku jira number 3 hadaan u gudbo waxay noqonaysaa waxay ka hortagtaa dhiig yarida waxa ku jira fitamiinada folate oo ay ka qayb qaadato samayska iyo kobcinta ugxanada dhiigga cascas number 4 waxa ay ka qayb qaadataa bogsoomida dhaawacyada sida dadka leh irid dhiigga iyo dhaawacyada aan bogsoonin number 5 waxay u fiican tahay maqaarka vitamin C waxay caawisaa samayska collagen oo ka qayb qaadato samaysanka iyo badqabka maqaarka dadka ay u fiican tahay isticmaalka liin balbeelmada waxa kamid ah number 1 dadka dhiigyarida hayso HB number 2 dadka infekshinka iyo caawiqa qabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waa salaam asxaabta sharafta meel walba ay joogaan janalkeena kusoo dhawaada meel walba ay joogtaan dunida daafeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh